waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walba nagala socotaan halkani waa wacaal miidiya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar ismiidaamin ahaa oo subaxnimadii hore ee saakay lagu qaaday bar kontarool oo ciidamada waaxda canshuurta ay ku lahaayeen isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira inkastoo aanan la ogeyn tirada rasmiga ah ee waxyeelada isu gaartay. haddana goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waqtigaasi ahayd mid aad u mashquulsan oo ay ku sugnaayeen gaadiidka dadweynaha oo qaarkood u yimaaday in ay ka qaataan warqadaha shaqo ee ay jidka ku marayaan. gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa ku howlan dabaabulidda dhaawaca, waxa uuna qaraxa ahaa mid xoogan oo gaaray meelo ka fogfog goobta uu qaraxa ka dhacay. dhibaatadii ugu badneed ayaa la sheegay inay soo gaartay gaadiidka mootobajaajka oo subax walba halkaa u taga in ay ka goostaan warqadaha sharciga oo wadamarista ah. sidoo kalena waxa uu dab qabsaday kaalin shidaal oo ka agdhoweyd goobta uu qaraxa ka dhacay. khasaaraha kuma eka goobta uu qaraxa ka dhacay keliya ee xitaa waxa uu burburiyey guryo dad rayid ah ay lahaayeen oo ka agdhowaa goobta. wixii wararkan kasoo kordha daawadayaal dib ayaan inkala socodsiin doonaa. aanu ku bilowna waxaa goordhow qarax xoogani uu ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho, waxaana markaasi faahfaahino kala duwan ay kasoo baxayaan qaraxaasi. meel sidaas aan uga fogeyn waxaa ku sugan wariye Saciid Yuusuf Cali oo markaasi isagu dhowr tallaabo uun u jira goobta qaraxa uu ka dhacay. Saciid, soo dhow, faahfaahin naga sii sidee bay wax u dhaceen? Ahmed, waa mahadsantahay. qoyska ex control afgooye ayaa waxa uu abaaro 7 daqiiqo hore ka dhacay qarax xoogan kaas oo dugsiga dhowrkiis laga maqlay guud ahaan dadweynaha gobolka Banaadir. khasaare aad u xoogan ayaa ka dhashay qaraxaasi inkastoo aan la xaqiijin karin. qaraxa markuu dhacay kadib ayaa waxa ay shacabka halkaasi iyo kuwii ka fogaa meesha uu qaraxa ka dhacay dib waxay bilaabeen in sabaxan iyo baroor ay isku daraan inkastoo aan la xaqiijin karin. ani ahaan inta aan leeyahay ku arkay afar qof oo dhaawac ayaan arkay oo aan xaqiijin karin qaarkood xataa imika lala gaaray isbitaaladii loola cararay. ilaa hadda waxaa gubanaya oo olol iyo isku daraya gawaari ka agdhow halkaasi iyadoo dadka ka agdhow goobta uu qaraxa ka dhacay oo aan la xiriiray ay sheegeen in qaraxa waa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo goobta ku qarxay. mid ka mid ah dadka goobta ku sugan oo aan la hadla waxa uu sheegay in isiga ahaan oo qaraxaasi uu soo gaaray dhaawac fudud. waxauna sheegay in dad badan meesha ay ku dhinteen waxyeello uu kasoo gaaray qaraxaasi oo aan la xaqiijin karin. balse waxa uu sheegay in qaraxa oo aad u xoogan dhibaatana u geystay goobihii ka agdhowaa ee ganacsiga. inkastoo uusan sheegin in markii qaraxa uu dhacay kadib halkaasi ay ku kala xireen uusan xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee halkaasi ka inkastoo dadka ka agdhoweysanyahin aad Saciid, waxaad sharaxaad naga siisaa qaraxu wuxuu dhacay xilli dadku ay goobahooda ganacsiga iyo waxbarashadooda ay u soo socdeen. marka sharaxaad dheeraada waxaad naga siisaa goobta qaraxu uu ka dhacay waa xagee? ma ex control afgooye halka controlka ciidamada dowladda u yaala mise waa meel ka fog? qiyaas intee la eg bay u jirtaa isgoyska? Ahmed, waa mahadsantahay. ex control afgooye ayaa ka dhacay qaraxa meel hore qarax oo hadda ka hor ooga dhacay oo ku yaala isgoyska oo meel goomiste oo la dhow midkiisa ku yaala waxaana qaraxa ma uusan u dhoweyn degmoontiga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi. inkastoo gaariga meesha uu qorxeed meel aad mid badan oo sana laga rara gawaarida aada bakaaraha iyo suuq xoolaha waa buteejo laga raraaye dadkana aad ay ugu badan yihiin. inkastoo aan la xaqiijin karin khasaaraha ujeedka qaraxa iyo halka loogu talagal la-aan la oga, balse gawaarida halkaasi ku sugnaan dadka raacayeen iyo goobihii ganacsiga oo imikadaasi albaabada loo fura ayaa dadkii ku sugnaa iyo dadkii halkaasi ku ganacsanaya kuwii kale oo ku dukaamaysanaan ay waxyeelada inta badan ay soo gaartay. qaarkood ayaa waxaad ku arkaysaa wadooyinka markaataayana iyagoo la ilmeynayo qaar ka mid ah eheladooda ee walow ay ka qabaan in qaraxaasi waxyeelo ka soo gaaro. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid. inuu ahaa gaari walxa qaraxa laga soo buuxiyey xilliga qaraxa u dhacayna waxaa goobta ka socotay
qaadista canshuurta gaadiidka isaga kala gooshta Muqdisho iyo Afgooye oo maalin waliba si joogta ay lacaga ugu qaadaan ciidan ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo halkaasi ku sugan. Qasaaraha warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida muuqaalkan aad ka dheehan kartaan. Waxaa cirka isku shareertay uuro xoogan oo meesha ka dhalatay kadib markii gaadiid dhowr ah ay gubteen sida dad goobjoogayaal ah ay inoo warameen. sidoo kale waxaa goobta tagay ciidan ka tirsan kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya waxay xireen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ka agdhow isbitaalada badi la geeyo dadka dhaawacyada ee magaalada Muqdisho iyo xarunta Ex-Control Afgooye ilaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida goobjoogayaal ay inoo sheegeen. qaraxan ayaa noqonaya kii labaad oo sanadkan ka dhaco Ex-Control Afgooye maadaama wadadaasi lagu qaado canshuurta ugu badan gaadiidka isaga kala gooshta gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. waxaa aad u badan cariiriga wadadaasi ka taagan oo xilli hore gaadiidkuba ay halkaasi loogu qaado lacagaha canshuurta oo inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya alisay ama xilli horeba ay gaadiidka ka qaadaan lacagaha canshuurta ah halkaasina fayl ay ugu jireen sida dad goobjoogayaal ah ay inoogu warameen. sida saraakiisha dowladda Soomaaliya ma jiro war ka soo baxay hase yeeshee waxaa lagu wadaa in hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ay war ka soo saaraan sida taliska booliska oo badi ka hadla dhacdooyinka caynkan oo kala ah. waxaana weerarkan mid la mid ah oo ka dhacay Ex-Control Afgooye horey isla sanadkan sheegtay Al-Shabaab. qasaaraha ilaa iyo iminka lama hubo inta uu gaarsiisan yahay balse waxaa jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxan oo dadka soo gaaray ay isugu jiraan qaar ka mid ah ciidankii goobta ku sugnaa iyo waliba dadkii watay gaadiidka lacagaha canshuurta laga qaadayay. Ex-Control Afgooye ayaa aad saxmad u ah xilliyada hore ee subaxii maadaama gaadiidka dadka shaqooyinka u kala haya ama u dheelmanaya ay isaga kala gooshayaan ay raacaan ay isticmaalaan. sidoo kale Ex-Control Afgooye badi dadka degan duleedka Muqdishona ay subax horeba shaqooyinka halkaas ay ka soo aadaan. qof ka mid ah dadka wadadaasi ka agdhawaa ayaa inoo sheegay in qaraxa markii uu dhacayay goobta ay ku sugnaayeen gaadiid badan kuwaas oo muuqaalka idinkaga muuqda uurada baxaysa gaadiidkaasi oo gubanaya kadib markii dab uu isqabtay dhowr dhinac gaadiidkii halkaa ku sugnaa. waxaana goobta tegay gaadiidka dabdamiska si ay u baktiijiyaan ama ay u damiyaan gaadiidka ololaya. sidoo kale waxaa tegay gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambulasta si ay u soo qaadaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay gaar ahaan kuwa dhaawac soo gaaray si ay u geeyaan isbitaalada magaalada Muqdisho loogana daaweeyo dhaawacyada soo gaaray. howlwadeena ka tirsan gurmadka degdega waxay inoo sheegeen in hawshii weli ay socoto ilaa imikana dad kala duwan ay qaadeen inkastoo tiro rasmi ah aan laga haynin dadka la qaaday iyo waliba isbitaalada sida gaarka ah loo geeyay balse wararku waxay sheegayaan in isbitaalka Madiina oo badi la geeyo dadka dhaawacyada ah ay ku qulqulayaan ehlada dadka waxyeelada soo gaartay. waxaana magaalada Muqdisho gaar ahaan Ex-Control Afgooye saaka ka taagan xaalad ka dhalatay weerarka loo adeegsaday ismidaaminta. waxaana goobta ku sugan qaar ka mid ah dadka raadinaya eheladooda ama ku tuhmaya. marka laga soo tago gaadiidka tirada badan ee goobta ku sugnaa iyo ciidanka dowladda canshuurta qaaday waxaa ka agdhow goobta goobo ganacsi oo ay leeyihiin shakhsiyaad. sidoo kale waxaa ka agdhow goob busteejo ah oo gaadiidka laga raro maadaama wadooyinka magaalada Muqdisho meelaha qaarkood ay yihiin kala wareeg ama dadka qaar sida u yaqaanaan